tacaala waxaa lagu yidhi 2 isbuuc oo kaliya baad haysataa ee dadkaaga la soo dardaaran balse man niyad jabine ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan buu siiyey oo ducadan u akhristay ilaaha ku xirnaa ducadani waxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرن معجزة وإلهي سبحانه وتعالى تصي ولكن أحمد أيار ربنا إن آنو إذن لو ذاقنا أرن كاسي وحكا لماها وحكول عي ولكن حانون باصوها ليلي اختربو تجي وحلقو يري قلين باقليسا قلين كاغا مركا الله السمين ايو وحالله بدين اياه إن قلين كاذن كبت بادي لكن سإلهي سبحانه وتعالى وحكومة نيستي إيمان waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haleeshiyey duco in uu ku celceliyo subaxii uu ku celceliyo habeenkii uu ku celceliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu natiijadii ka dhigay in markii uu ku noqday dhakhtarkii ku noqday oo baaritaanadii la mariyey in ay noqdeen wixii oo dhan kama jiraan ay noqdeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shaafiyey adiga i daawanaya iyo anigu waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano ducadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shaafiyey walaalkeen waxaan ku soo dhaweynaya walaalkeen Axmed marka hore si uu isku keen baro horta walaalkeen Axmed waa kuma ahlan wa sahlan wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan walaalaha ku xiran walaalkay Sheekh Maxamed Jaamac aad baa salaamantiin marka hore marka kale toona hadiyadan aad ii soo diri doono waa mid adiga ku anfici doonto anagana anfici doonto aniguna kan walaalkay waxaan isku nahay dad walaal Ilaahay dartiis isku jeclaaday khayrkan isla jeclaaday alxamdulillah magacaygu waa Axmed Jayta Suufi insha Allah waxa waaye waa inta badan waa taqaaniin inta ku xiran walaalkay intaan aqoonin barasho wanaagsan waxaan rabaa marka inaan horta qof walba waa amalkiisa iyo iimaankiisa ma sha Allah ay ku xiran tahay صح bishii hadda dhamaatay sideedaad ayaa waxaa la kulmay dhakhtar صح dhakhtarkii markaan u tagay صح wuxuu dhahay warniyahow xanuunka ku hayo meel hadda ka hor qaliin lagu sameeyay wuxuu dhahay xanuunka ku hayo ma garan karno صح laakiin haddii meeshaasi qaliinka hor lagu sameeyay dhanka wadnaha dhinaciisa xigto haddana waxaa laga yaabaa in xanuunkaasi 50-50 oo noqdo oo xanuunka ma taqaanaa ii sheeg ama waa dhimo kartaa ama waa noolaan kartaa oo noloshaadiba qiil baa la geliyay qiil la geliyay Allahu akbar markaas waxaa ku dhahay wuxuu dhahay marka isbuuc 2 isbuuc ayaa fasaxaysataa inaad ku dardaaranto ama aad dadka ma taqaanaa ay kugu dhow aad u sheegto wayhaan ku yiri waa ka soo tagay marka gurigayga ku soo laabtay alxamdulillah waxaan bilaabay waqtigaasi horta quraanka oo anigu marka hore xaafid ahay inaan quraankii 2 isbuucba aan ku dhameeyay 2 jeer Allahu ma sha Allah waxa ii dheeraa marka ducadan aadka u qiimaha badan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu igu badbaadiyay idinkana qofkiina xanuunsan aan jeclahay inaan maanta la wadaagno oo aan u sheegno inay qiimo leedahay ducadaasi duca kale ma ahan waxaan sameyn jiray marka صح salaadii subax marka in sha Allah taala si fiican u dhageysana ducada si ay u xifdina in sha Allah taala waa idinku soo celin doonaa inta lagu soo qori doonaa marka ku soo qori doonaa biidnillah ducada waxaan sameyn jiray marka xilligii salaadii subax marka dugto صح oo adkaartii wixii aan akhriyo kadib aan fariisan jiray ما شاء الله ducadan akhri jiray ducada ku celin ha la cadad la cadad ma xisaabin jirin waa iska wadi jiray ما شاء الله galabkii casirkii markaan dugto ilaa salaada maqribka inta u dhaxaysana صح waan akhrisan jiray ما شاء الله ducadaas waan ku celcelin jiray ما شاء الله habeenkii saqdi dhax marka inta salaatu leel u soo kaco oo quraankii aan akhrinay xilligaas صح yaa waxa sameey jiray marka quraankii dhameeyo aydan ku duceysan jiray ما شاء الله ducada hada in sha Allah ducadu waxay tahay marka waa duca yar oo kooban oo aan badnayn Allahu akbar Allahumma ishfini صح birahmatika اي biamrika صح biqudratika biquwwatika ya rabb alalamin اللهم اشفيني إله الشافي وحيو شافي برحمتك حريستع صح بأمرك أمرك يا ربي بقدرتك بقدرتك أود هذا إله يقول شافي بقوتك إله أود هذا يوسف والله وجه يا رب العالمين رب العالمين تشكره والدعاء داوكو ما شاء الله حنتك يا بحينين صح دبات أنا كأركينين صح ستة دقيقة لجوج جوابي دون إن شاء الله تعالى أنا إسكدريمي دونتو هدات كنسر لحن وصنتهاي هدا محلها إن ديكر إيه سكر إيه وحول بإيه كهايان عذر والبؤ كهايو دعاء سكاجا فينا الله أكبر دعاء وحنا قدرتا إيمان كمان إيمان دعاء لي وخر سنة يا
laakiin waynu qofku aaminsan yahay in xanuunka uu keeno ilaahay subxaanahu ilaahna qaadi ilaahna uu qaadi kara aniga markii uu gaalki dhakhtarkii ahaa uu isoo dhahay macnaha ii sheegay xanuunkaaga 50-50 waaye horta alxamdulilah qof kale ma aaminsan yaa wax walba keenay ilaahay subxaanahu watacaala yaa wax walba biilaahay marka waxaa dhacday waa soo gabagabaynaynaa ducadii markaa intaasi sitimaankaasi labadii sitimaanba aan kamilayo oo aan akrinayay dhakhtarkii aa ku laabtay jimcihii hadda lasoo dhaafay allah haye markaan tagay iskaanaa lay diray dhiigaa lay qaaday candhuuf wax walba alxamdulilah maxaa la kulmay dhakhtarkii oo dhahay maxaa isticmaashay daawo noocaa isticmaashay wallahi kelmad kale ma uu jawaabin waxaa ku dhahay daawona ma isticmaalin waddankan aan joogno daawada dhakhtar asoon ku qorin ma qaadan kartid marka wax kale maanan isticmaalin ducadaas oo keliya iyo aayaadka qur-aanka ilaahay oo qalbigeyga ku jiray iyo iimaanka oo ilaahay aaminsanaa ilaahay igu shaafiyey marka waxaan jeclahay adiga inaad ka faa'iidaysato aana sii gudbisid walaalaheena usii gudbisin insha allahu tacaala waxaa lagu yidhi 2 isbuuc oo keliya baad haysataa ee dadkaaga la soo dardaaran balse ma niyad jabine ilaahay subxaanahu watacaala iimaan buu siiyey oo ducadan u akhristay ilaaha ku xirnaa ducadani waxay tahay halkan aan kusoo qori doonaa insha allahu tacaala allahuma shfiinii برحمتك بأمرك بقدرتك بقوتك أي إلهي سبحانه وتعالى كجبت بادي حنون فربضن قليل فربضن إلهي سبحانه وتعالى هبرك يا ولالكين عافماتك الله زياديو لمانتين وسلامتين وحاج على سنة يعني في كليبك أدياتك وقيمها بدن أنا مركو ويشة يا ولالكي ولا قيراد حال ومتى أن لو ذاقنو سأجر أين وجهلنا أو حلقية موقف ما أنت يعني دقيسته إنه كو عمل فلا يسقون إلهي سبحانه وتعالى وكو عافيه